Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada daawadayaal, waa mar kale iyo muuqaal cusub. Waxaa jira qaladaad guud oo dhammaanteen samayno, kuwaas oo si qunyar ah u baabi'iya xushmadda iyo qadarinta ay dadku inoo hayaan. Xushmadda iyo qadarinta dadku ma aha mid lagu helo inta badan habeenno gudahood, balse waxay u baahan tahay kasbasho. Inaad kasbataana waxay u baahan tahay shaqo adag iyo samir. Ficiladan aan kuu sheegi doono hubaal waxay kaa dhigi doonaan qof ay dadku aad u xushmeeyaan. Samee wax ka fiican waxay dadka kale sameeyaan. Waqtiganaynu joogno uma baahnid inaad noqoto geesi halgamaa ah si ay dadku ugu xushmeeyaan, balse waxaad samaysaa waxay dadka kale maarayn waayeen inay sameeyaan. Haddii aad maskaxdaada ka baadho dadkaad inta badan xushmayso, waxaa kuu soo bixi doonta inay dadkaas aragti ahaantooda ku guuleysteen samaynta waxyaabo waaweyn, isla markaana dadka ay si fiican ula dhaqmaan. Bani aadam ahaan ma jeclin dadka kale inaga fiicnaanaya inaan aragno, balse markaan aragno qof sameeyay waxyaabo cajiib ah isla markaana si fiican noola dhaqmaya, waxaa hubaala inaan qofka qadarin doono. Weligaa qof waxba ha ka baryin. Haddii aad qof wax ka rabto, dhibaato ma laha inaad qofka wax weydiisato, balse weligaa ha baryin. Bani aadam ahaan waxaynu ka soo qaadnaa qofkayna baryaa inay naga daciifsan yihiin. Waxaa adkaanaysa inaynu qofka qadarino, sidaa darteed qofna weligaa waxba ha ka baryin. Weligaa ha noqon qof baahi badan. Haddii aad rabto in dareen ahaan lagu taageero ama aad baahi u qabto qof aad jeceshahay, shaqo, lacag ama wax kastoo kale, weligaa dadka ha tusin inaad waxa aad ugu sii baahan tahay. Ku istaag cagahaaga. Dhammaanteen waxaynu nahay bani aadam, waxaynu la kulannaa waqtiyo. Dhibaatana ma aha inaad mararka qaar qaylido ama aad oydo ama aad samayso waxyaabaad ku muujinayso dareenka, balse weligaa dadka hortooda ha ku samayn waxyaabaha. Xushmee naftaada waxa aad u adag. Haddii aanad adigu naftaada xushmayn, inaad xushmad ka hesho dadka kale. Si aad naftaada u xushmayso, ilaali ballanta aad naftaada la gashay. Aamin qiimahaad adigu leedahay, sidoo kalena ha ka baxsan dhibaatooyinka aad wajahayso oo la tacaal. Ugu dambeyntii, waxaa hore loo yidhi Rome laguma dhisin maalin qura. Waqti ayay qaadanaysaa inaad barato dabeecado cusub oo aad la qabsato. Ku dadaal qodobadaan soo sheegnay, waxaana hubaala inay dadku aad ku xushmayn doonaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa horiga dhiirigelinta dhalinteena Soomaaliyeed.